السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي وأنا إذن سلام أدونكم مeel walbaad ka joogtaan kusoo dhawaada channelkeena Muno Soma walaashiina Muno. Subax wanaagsan ayaan idin leeyahay. Subax ay ii tahay maanta waxaan idin soo duubayaa sida routine loo sameysan karo iyo jadwalkayga. Waan soo gelin doonaa insha Allah. Screenshot waad ka qaadan kartaan. haddii xitaa jadwalkayga uusan ku anficaynin ama isku jadwal aanan noqon karin, waxaan rajeynaa inaad motivation aad ka heshay, dhiirigelin inaad ka heshay, in aad isku daydid adiga jadwal gurigaaga iyo reerkaada ku habboon in aad samaysatid biidnillaahi alkariim. marka hadda quraacda ayaan diyaarsanayay. maxaad ugu jeceshiin oo kale quraacda inaad ku quraactaan? Aniga waxaan adduunka u jecelahay boorashkan waxaa waaye waa favoritkayga, lagama sheekeyn karo. marka quraac yar ayaan soo diyaarsaday, shaahigayga, biyahayga. meeshaani ayaan cashir yar ku akhrisanayaa intaan sii quraacanayo. waa caruurtii waxaan geeyey iskuulkii iyo xanaanadii ayaan kala geeyey. marka alxamdulilah, intaan haysan ilaah subxaana watacaala ha siiyo, inta haysatan ilaah subxaana watacaala ha u barakeeyo, allaahuma aamiin. cashirkan markii aan dhameeyo ayaa rabaa insha allah in aan gudagalo maantoo khamiis ah iyo jadwalkeena. saan idin sheegay routine ayaan leeyahay aniga, jadwalka hoosha maalmaha sidan u kala qabto iyo waxyaabahaas oo dhan. cashirkii markii aan soo dhameeyey waxaa waaye wejiga ayaa waxaa marsanayaa mask ayaan marsanayaa. mar walbo guriga aan nadiifinayo maaragtay oo aan hagaajinayo, wejigana iyo jirka ma hilmaami. marka intaana howsha aanan bilaabin ayaan wejiga soo marsadaa mask, si yacni naftana loo hilmaamin. marka jadwalkay waa kana frinjeerka ayuu ku dhignaa, waan soo fujiyey. jadwalkay waa kana sidan ayuu u yaalaa. haddii aad jeceshihiin waan idin dulmarayaa wax yar. jadwalka wax yar haddii aan isla fiirino, isniintii oo kale waxaa guryaha dhagan ayaan tirtiraa, musqusha iyo nadaafada wejiga ayaan ku qortay. waxaan ka wadaa yacni in aan bal wax marsado, wejigana la toosiyo. talaadada ayaa inoo soo harto, waa maalin nasiino. waxa kaliya aan gurigan ka qabtaa waxaa waaye adiga 1 saac ayaan ku qortay, laakiin inta badan way ka yar tahay 40 ilaa 45 daqiiqo, sometimes waa nus saac oo nadaafada guriga. jikadoo kale inaan iska hagaajiyo, sariiroo kale inaan firaasho, gurigoo kale inaan iska huufareeyo, waxyaabahaas waaye. laakiin shaqo culus waxaas dhan ma qabto. talaadada waa maalin nasiino, arbacada waa sidoo kaleeto. waa waxyaabaha daruuriga oo guriga maaragtay markay qof soo gasho meelaha indhaha ay qabanayaan oo dhan ayaan iska hagaajiyaa. nadaafad culus ma galo. khamiista ayaa inoo soo hartay, waxaa waaye guri tirtirtaankii ayaa lagu soo laabanayaa, musqushii. wejigana waxaa waaye wax ayaan sii marsanayaa, face maskii waxyaabahaas ayaan isticmaalaa. waxaa inoo soo haray jimcada. maalinta jimcaha waxaa ii qorshe ah waxaa waaye dharka inaan dhaqo, timahoo kale nafaqa inaan marsado, wejiga sidoo kaleeto face mask inaan marsado, iyo halkii saac oo guriga aan iska hagaajinayay. weekendigan waxaa waaye dharkii lasoo dhaq ayaa la hagaajinayaa, musqushana waa in la nadiifiyo, halkii saac oo gurigii oo la hagaajin lahay, iyo inaan nasto. marka jadwalkayga maalinlaha waa sidaan ayaan u kala qeybiyey. insha allah idinkan waxaan rajeynayaa inaad ka hesheen. haddii uusan ku anficaynin, waxaan rajeynayaa inaad isku daydid inaad samaysatid jadwal yacni adiga kuugu habboon, oo aad yacni gurigaada ku horumarin kartid, nafsadaadana aad ku nasan kartid. aad iyo aad ayay muhiim u tahay, iyo nafsadaada inaad daryeeli kartid. marka insha allah hoosna waa iigu soo qori kartaan jadwalkayga sidaad u aragtaan. jadwal nasiina miyuu idin leeyahay mise waa jadwal dhib badan? insha allah fikirkiina aad iyo aad ayuu muhiim ii yahay. jadwalkan kulli aniga waxaan sameynaya ugu yaraan 6 sano ugu dambeeyay sidaan ayaan ahaa, oo isniin walbo, talaado, arbaco, yacni maalin walbo hal shaqo ayaan sameynaya. maalmaha aan nasto kala waxaan sameeyaa xafishka guriga yaaloo kala maaragtay. qaanad waxaa laga yaabaa intaasoo sano aanan la hagaajinin, la iska hilmaamay, waxaasoo dhan inaan ku mashquulo. laakiin haddii oo wax kale aan qabanaynin, waxaa waaye inaan maalmahaasi aan nasto oo nasiina aan dareemo, maadaama khamiista ay sugayso haddana shaqo culus, inaan guryihii iyo musqushii waxyaabo badan oo saacad ka badan ay ugu qaadanayso. sidaas darteed waxaa waaye labadaas maalin inaan usoo nasto, garbihii, dhabarkii, lugihii inaan usoo nasiyo ayaan jeclahay. marka damaanta waa inuu jadwalka khamiista waa la socoteen aan u maleynaa. waxaa waaye guryaha dhan inaan soo tirtirno, allah mustacaan, musqushi inaan iska soo dhaqno. wejigana waxaa waaye waxaan soo marsaday face maskiga
marka face maski intuu sii qalalaya waxaan sameynaa daaqadihii ayaan guryaha dhan u furfurayaa. waxaan ka bilaabayaa meel walba inaan gacanta aan sii marmariyo, miiska wax ku akhristo, kan fadhiga, kan qadada, yacni kor iyo kii tv-ga ba kor markaan kasoo dhamaado waxaa waaye dhulka ayaan iskugu imaaneynaa, rooga dhan waa qaadaa, waa hurgufaa, waan sii leerinayaa. kadibna waxaa waaye hooferka aniga waxaa waaye saaxiib ayaan nahnay, aad iyo aad ayaan u jeclahay. waa waxyaabaha aan shaqadoo kale aad iyo aad iga caawiso, waa hoofer fiican inaa haysatid aad iyo aad ay muhiim u tahay. busta iyo boorka iyo ciida, especially anaga hadda reer Sweden haddaan nahay xilli ciid ayaa lagu jiraa. ilmihii guriga markay ka imaadaan waxaa jeebabkeeba ciida ay ku wataan, kabaha ha sheegin. marka hooferka wuxuu iga caawiyaa waxaa waaye wasaqdaasi waxaasoo dhan ayuu iga caawinayaa. teeda kale hooferada waa aragteen inta badan markii lasoo gado afka ugu horeeya ma aragtay, ani kama helo runtii, wuu adag yahay, wuu culus yahay, waxaa waaye garbaha ayaa kuga xanuunaa. afka aniga hadda igu xiran sariiraha hoostooda xataa iyo kuraasta hoostooda way ii galaysaa. waa af universal ayaa la dhahaa oo biig ayaan kasoo gaday. teeda kale xataa rooga ma aragtay makaaga dhegdhegaayo, waa very easy. garba xanuun in dhabar xanuun waxaa kugu dambeynaysa markaa iska bedeshid hooferka afkiisa hoose kan lagu soo gado especially ma ka heli ani runta. kulley ma aqaan idinka hooferkaad isticmaashaan, laakiin aniga hooferkeyga waa aragteen afka hore aad iyo aad ayaan u necbahay kan lagu soo gado. marka waan bedelay oo mid kale oo maasha allah smooth oo meelaha hoos oo dhan sariirtii waxaas, maadaama maalin walba ma soo riixi karo, wasaqdana wuu kuu hoofereynaa, wuu kuu hagaajinaya, culeysna ma ahan. roogu kala xitaa ma kaa nuugayo. mashiinkaana waa aragteen hadda waa kanaa qeybta fadhiga qeybtiisa kale ayaa hadda bilaabay inaan tirtiro. fadhigeysa aragteen aad iyo aad u weyn yahay, qeybna waxaa waaye meelaa wax ku akhristo, xafiis yaraan ka sameystay, qeybna qada ayaa taa, qeybna waxaa waaye fadhigii iyo qadadii ayaa taalo. marka alxamdulilah waxaan ku faraxsanahay 3 qol kala duwan intaan tirtiri lahay hal qol inaan tirtiro, sababtoo shaqada way ii fududeynaysaa saa aniga u fikirayo, waa sida ila tahay. marka alxamdulilah kulley xoogani waxaa waaye aboor ayaa cuni lahay. inta la joogo in laga faa'iideysto, inaad jadwal samaysataan, inaad ku nasataan. hooyooyinka qurbaha haddii aan nahnay waxaa waaye nasiinan la-aan ayaana dishay, stress. sidaas darteed waxaa waaye jadwal oo kugu habboon oo muddo aada waday oo aada joogtaysay oo ku anfaco qof walba inay samaysato waan kula talin lahay. jadwalkayga qasab maaha inaad ka heshid, waxaa laga yaabaa isku dan, isku duruuf, isku situation in aanan ahayn, laakiin just inaad ka heshid bal idea xiliyada aan nasto, xiliyada hoosha aan qabto, sidaan hoosha iskaaga qafiifiyo, yacni sidaan jirkeyga iyo timahayga aan u daryeelo oo aanan u hilmaamin. marka hadda waa kanaame daaqadihii dhan markaan furfuray maasha allah guriga dhaqso ayuu qalalaa. roogi ayaan soo dhigay. haddana waxaa waaye qolkii caruurta ayaan u gudbaynaa. qolka caruurta markaan u gudubno sidoo kale waan soo hoofareeyey, tirtirtaan ayaan galay. markii aan tirtiro ayagana sidoo kaleeto waa ugu geli doonaa insha allah. waxaan kaloo idin weydii lahay, waxaa laga yaabaa dad badan inay daawan doonaan, koley kulli bilaa routine ma ahan ma dhihi kari, laakiin asxaabtii routiinka loo kala insha allah hoos inoogu soo qora. waxaa laga yaabaa aniga xitaa inaan idinka faa'iido oo wax iga maqan oo kala qof kaleeto ii sheeg inay samaysato ayaa laga yaabaa oo aan jeclaan lahay inaan routiinkeyga aan kusoo daro. marka waa kala faa'iideysanaynaa dhammaanteena. markii laisku caqli darsado waxaa waaye natiijo fiican ayaa la helayaa. alxamdulilah tirtiritaankii waa u dhameeyey. roogooda yar ayaan usoo firaashayaa iyo kuraastooda iyo iisheeg miiskii yaraa ee wax ay ku qorqortaan. kadibna waxaa waaye maasha allah sidaan ayaan kusoo dhameeyey. jikada iyo qolka jiifka waan ka hormariyey, already waaba soo tirtiray, waan soo hagaajiyey. waxaa kaliya hadda iga haray waxaa waaye musqusha. qolkan hadda waa dhameeyey, qolkii waa ujeedaan waa u hagaajiyey. waxa kaliya hadda ii haray waxaa waaye nadaafada. xagga nadaafada waa musqusha ayaa ii haray. marka xaggii musqusha ayaa aadi doonaa. hal mar ayaan howsha ka farxalinaynaa biidni illaahi alkariim. aan isla socon insha allah asxaabta. muuqaaladan waa ku mahadsantihiin sida quruxda badan oo aada liketa iigu saartaan iyo kommentiyadiina. jasaakallah khayr ayaan idin leeyahay. aad iyo aad ayaan ugu farxay. idinkana ilaahi subxaana watacaala waxaad rabtaan ha idin siiyo, ilaahi idinkana ha idinka farxiyo. haddana musqusha ayaan soo galay. pink stuff ayaan jeclahay aniga oo inta badan hadday noqoto jikada, miisaska, musqusha
ayaan u isticmaalaa. Shaqadan waxaa ogaatiin markaad joogto aad ka dhigtaan maaragtay waqti badan xitaa kuguma qaadanayso inaad dhaqdid oo aad nadiifisid musqusha oo kala iisha guriga musqusha kaliya aanan dhihin inkastoo musqusha ay dufantii oo kala maaragtay wasaqda ay si dhaqso ay ku dhageyso ee adagta inay dhaqso ay ka foqdo musqusha markaad joogtaysid oo iisha intaasoo mar wiigii aad gacanta aad marinaysid mar walba waxaa wasaqda way yaraanaysaa. Marka ugu horeyso waxaa laga yaabaa musqusha inay kugu qaadato saacad oo kala marka cabaar aad joogtaysid bil kadib waxaa laga yaabaa musqusha dhan inaad ku hagaajisid 10 ilaa 15 daqiiqo sababtoo maalin walba meel gacanta la marinayo wasaqdeeda ma badna. Sidaas darteeda waxaan musqusha oo kala aniga aan u dhaqaa wiigii 3 mar waa Isniintii iyo Khamiista iyo weekendiga waxaa waaye wasaqdeeda ayaa badan markii lagu qabaysto timaha markii lagu dhaqo dufantaasi waxaa waaye dhaqso ayay meelaha ku dhageysaa. Sidaas darteeda 3 beri ayaan dhaqaa gurigan waxaa waaye 2 beri ayaan tirtiraa. Hawsha waan dhameeyay anigan waxaa waaye toos ayaan usoo qabaysanayaa waan soo nadiifinayaa guriga. Fadhigan waa kana sidaan ayuu kusoo baxay markaan wada hagaajiyay wax yar uunsi bakhuur aan dhahay uunsi maahan bakhuur yaraan qac ku siisanayaa intay ilmaha ay iskuulaadka ku maqan yihiin ma jeceli inay ku neefsadaan habeenkii oo kala ama waxaan jeclahay markay maqan yihiin in aan shido inta kale waxaa waaye ma shidi. Waxaan rajeynaa asxaabay inaad ka hesheen jadwalkayga gelin hore hawsha markaad iska dhameysid waxaa waaye gelinka dambe dhaan ilaa fiidkii waxyaabo badan ayaa qabsan kartaa. Saas ayaana igu kaliftay aniga waxa jadwal aan u sameeyay si aan jaamacada waqti aan ugu helo aan wax ku akhristo. Marka hadda alxamdulillaah waan soo qabaystay hawshii waan kasoo farxaladay qada yar ayaan soo diyaarsaday waxaan iska daawanayay musalsalkii Arday bal yaa ku tixan musalsalka Arday sidee u aragtaan ma ka hesheen aniga maasha Allah aad iyo aad horta ii cajabiyay waxaan rajeynayaa inay noo sii wadaan saacad watana markaan qaday kadib waa 6 saac iyo 30 iyo something saa u jeedin haddana waxaa waaye halkaan casri yar ayaan caruurta ugu diyaariyay maanta xilli hore ayaan iskuulka aan ka soo waday wax yar oo casri yar ayaan halkaan ugu diyaariyay daanka fruugti biyahooda si aan waqti aan wada qaadano aan wada sheekeysano. Caruurta ayaga xuquuq ay leeyihiin oo guriga way degan yihiin oo guriga caraf badan oo qurux badan oo indhaha ay la raacaan inay ku raaxaystaan waxaa waaye waa loo baahan yahay guriga ayaga qayb ayay ka degan yihiin waxaa waaye xuquuq ayay ku leeyihiin marka insha Allah caruurtana xuquuqdooda lagu dadaalo. Asxaabta sida caadada ahayd like iyo share iyo subscribe iyo comment intaba waxaa waaye hana la dhaafin insha asxaabta jadwalka rabtan waxaa waaye samir iyo dulqaad iyo indha adeeg ayuu u baahan yahay 2 beri jadwal kulama qabsan kartid jirka iyo maskaxiyan wuu la qabsan doonaa markaad maalin walbo shaqada aad joogtaysid marka routiinka ka cabsanina haddii aad jeceshihiin waad samaysan kartaan laakiin muhiimaddu waxaa waaye inaad wadid oo aadan ka harin markii aad la qabsatid wallahi waxaa waaye waa raaxo waqtiga ku nasatid waqtiga wax ku akhrisatid waqtiga caruurta aad gelisid ayaad heleysaan marka insha Allah asxaabay khayr ayaan idin dhaafay until next time assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.